Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan waxaan ku haysanaa su'aal ah geometry. Su'aashan geometry waxay oranaysaa soo saar qiimaha x soo saar. Haddaba halkan waxaan ku haysanaa shaxankaasaan ku haysanaa halka inoogu sawiran. Shaxankaas wuxuu inoo sheegayaa inay 6 angle ay ku samaysmeen angle at point ay ku samaysmeen dhibic ay ku samaysmeen. Marka dhibicdaasi ku wareegayaan point-yadana waxayna isku buuxiyaan 360. Submission-ka angle at point-ga submission-kiisu waa 360 degree. Haddaba dhibicdaasi ku wareegayaan aan halka ku calaamadeeyay 360 bay sameynayaan. 5x bay ka bilaabmayaan waxayna ku dhamaanayaan 360 iyagoo soo wareegaya ilaa beeshay ay ka soo bilaabmeen bay ku joogsanayaan. Marka angalada sida u samaysbaba waxa la yiraahdaa angle at point baa la yiraahdaa. Waana angalada ku samaysma dhibic oo na soo wareega 360 degree baa la yiraahdaa angle at point. Haddaba halkan waxay inoogu kasab kale ba inoogu dhex jira. Kasabka kale wuxuu ina leeyahay vertex angles waa equal. Bardhamaad angalada wadaaga vertex bardhamaad wadaaga waa maxay? Waa equal weeye. Haddaba aynu sawirano marka bardhamaad maxaan ka wadnaa iyo ama vertex maxaan ka wadnaa. Oqaad halka 7x ka xagasha ka soo horjeeda oo kale wax noqonaya iyana 7x binoonaysa waayo waa vertex angles weeye. Vertex angles kuna equal bay ahayd 7x wayna leekaato 7x kale. Sida oo kale waxaan la mid ah 5x ku dhinaciisa kale iyana wax noqonayaa 5x buu noqonayaa. Dhinaca kale 6x ku iyana wuxuu noqonayaa 6x. Marka hadda 5x ka aynu marayno waxaan sameynaynaa 5x maadaama uu vertex yahay isna wuxuu noqonayaa 5x. Waayo vertex angles ku maxaynu oran jirnay waa equal weeye. 6x kaasina wuxuu leekaanayaa 6x. Marka waxaan sameynayaa 7x kaas waxaan u geenayaa 6x waxaan u geenayaa 5x waxaan u geenayaa 3x. Marka submission kooda baa waxaan ka dhaxaysiinayaa 360 degree. Waayo waxay isku buuxiyaan 360 waana angle at point. Marka waxaan soo qaatay isu geyntii oo dhan submission kii oo dhan baan soo qaatay. Maxaan sameeyay 5x kii 7x kii 6x kii 5x kii baan soo wada geeyay waxaana ka dhaxaysiiyay 360 degree. Maadaama ay isku buuxinayaan 360 7x ka isu geey 6x ka isu geey kana dhaxaysiiyay 360. Haddaba marka aynu isu geyno intaas oo dhan aynu isu soo qaybino waxay noo soo baxaysaa x ugu dambeyn waxaynu helay 10 saasaan uga shaqeynaysaa wabillahi tawfiiq.